ay soo saaraan sideese lagu filin doonaa qodobadaas mar haddii madaxdii federaalkan ay miiska fadhiyin su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu barnaamijkan ku faaqidi doonaa ay nagala qaybgalayaan cabdulaahi cali xirsi timcadde wasiirka warfaafinta ee puntland khadka taleefonka ayuu ku jira khadka taleefonka ee muqdisho isna waxaa ku jira salaad cali jeelle wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya haatanna gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda khadka taleefonka nairobina waxaa ku jira dr ibraahim faarax bursaliid oo aad wada taqaanaan arrimaha siyaasadda soomaaliyana ka faallooda soo dhawaada marka hore marka xigta waxaan ku bilaabayaa wasiirka warfaafinta puntland cabdulaahi cali xirsi timcadde madaxda gobolada iyo kuwa federaalka ma hal dhinac bay u wada socdaan mar hadday isku ra'yi soo saareen waa salaamaya marka hore asxaabta labada oday ee ku jira meesha iyo odayda daadinaysa asxaabta soomaalida ee dhegeysanayaba ilama aha isku dhinac loo socdo waxaan se filayaa shirka madaxda dowlad goboleedyada ee ka furmay dhuusamareeb inuu ka soo bixi karo wixii isku raaci lahaa ummadda Soomaaliyeed isku raaci lahaa balse maxay ka shirayaan madaxda maamul goboleedyada maxay ka shirayaan madaxda dowlad goboleedyada waxay ka shirayaan xilliga aynu ku jirnaa waxii doorashada dowladda federaalka sida dowladda dhexe federaalka sida aynu wada ogsoonahay si bay wada maanta lagu wada qanacsanayn marka waxay wadaan si wixii dan u ah ummadda Soomaaliyeed maadaama la galay xilligii doorashada waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax dan u ah ummadda Soomaaliyeed iyo maartay wax oo la isku wada raaci doono insha Allah dowlad goboleedyada isku raaci doona madaxda dowlad goboleedyadu maxay qoonsadeen marka hore dowladda wadaweynu ogeeno waxba ma qarsoono oo muddada ay dowladdan jirtay intii dambe oo aan leeyahay hadda mala sanad iyo barkii hore mooyaane intii dambe ee hadda dowladdaas jirtay dee la islama shaqeynayo waxaad moodaysay maaragtay mororsi dalkana waxaa lagu waday tala wadaag waxaa lagu waday maaragtay waxyaabaha masiiriga ah in heshiis siyaasadeed laga gaaro xilligii doorashada aynu hadda joogno waad aragtaa sida wax loo wado aynu wada aragnaa marka waxyaabahaas oo dhammi waxyaaba la qoonsan karo waxay in dastuurka la dhammaystiro waxay in shabaab dalka laga saaro waxyaabahaas dhan baa la qoonsanaya oo aan tallaabo la qaaday xagga aanay jirin waxyaabahaasna waxyaaba jira oo la tabanayo wey marka waxaad doonaysaan miyaa in dalka uu nidaam darro kusii socdo mar haddii aad leedahay in sidii hore wax u socdaan ilaan sidii hore nidaam ma ahayne nidaamka aad ka halaso aanu garan maayo nidaamka waa middan wada tashiga mar haddii xildhibaano iyo baarlamaan ay jiraan waxa wada tashiga aad doonaysaan maxay tahay adeero baarlamaanka waa aragtay baarlamaanka laftiisa wuxuu noqday shibrayo heesa wuxuu noqday wax lagu subto oo la leeyahay oo aan ka hadlin waan ogna wixii maanta wad ka dhacay baarlamaanka markii laga hadlayay qaabka muqdishiga laga hadlay wixii ka dhacay waynu arkanay qaabkii baarlamaanka ku qaybsanaa waa arkanay dadkii meesha ka codeeyey waa la garanayay marka nidaam baa taasi mise waa nidaam darro waa tahay dabcan su'aalahaas waan ka jawaabi doonaa aan markan siiyo salaad cali jeelle wasiir ku-xigeenkii hore gaashaandhigga ee Soomaaliya salaadood maqlaysaa shirkan dhuusamareeb ka soconaya bal ka waran adiga sidoo kula yahay bismillaahi raxmaani raxiim marka hore akhyaarta ku jirta qadka iyo guud ahaan ummadda waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam shirka horta hadda meeshaas uga furmay magaalada dhuusamareeb runtii waxaan isleeyahay wuxuu taageeri doonaa baaqi madaxda dowladda ee hadda ra-iisul wasaaruhu oo ugu horreeyay madaxweynuhuna oo mataqaanaa oo ku raacay marka haddee doorashada marka ugu horeysaba waxa la isku khilaafsan yahay ma ahan waktigeedii ha ku dhacda waa la isla ogolyahay doorasho xula oo la xulaayo iyo doorasho qof iyo coda oo dadka Soomaalidu ay ka wada qaybgelayaan taas waaye midda oo muhiimadda ay tahay marka waxaan rajaynaynaa haddee maadaama ay baarlamaanku meel mariyeen shuruuc labada aqal oo cod ku salaysan ummaddaanuna ay muddo dheer ay mataqaanaa u baahneeday in talada gacanta loo geliyo shacabka Soomaaliyeed in doorasho qof iyo coda ay dhacdo in la isugu imaan doono taasaan u arkaa marka waxaan rajeeyayaa maade arrintii ay ka hadleen meelay u dhaafaan male madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu arrinkaas ay kusoo biyashuba doontaa laakiin sida uu sheegay cabdulaahi cali xirsi wasiirka warfaafinta Puntland isku ra'yi ma ahan oo isku meel wax looma wado marka adiga sidee u aragtay in isku dhinac wax loo wado qaabkee ugu aragtay
sideedaba dadka meesha yarta ah oo ay ka ilduufsan yihiin oo in laga saxa loo baahan yahay waxaa waaye doorashada waxaad ogtaha baarlamaanka soomaaliya inuu meel mariyey sharci doorashooyin oo heer federaala oo la yidhaahdo sharciga doorashooyinka qaran ee heer federaal la yidhaahdo inuu meel mariyey labadiisa aqal labada guddoomiyena mataqaanaa iyo madaxweynaha ay saxiixeen madaxweynuhuna iyagoo garbaha ka jooga ay qalinka ku duugeen madaxweynuhuna halkaas amata sharcigaas uu ku sharciyoobay laakiin salaad sida uu ku doodayo cabdulaahi cali xirsi wasiirka warfaafinta puntland xildhibaanadii baa waxay noqdeen baa leeyahay kuwa lagu shubtay oo aan shaqadooda qabsanayn marka dad aan shaqadooda haddaysan qabsanayn soo in laga tashada maaha baarlamaanka saadka warqabtaba puntland hadda oo halkan ku jira baarlamaanka cabdiweli caligaas uu soo xulay waqtiga uu mataqaanaa xilliga xasan soo xulay oo representative-ka u ahaa puntland waad ogtahay jubbalandna axmed madoobaa kasoo xulay dowlad goboleedyada kalena sidoo kale usoo direen waa kuwii ka wakiilka ahay oo farmaajo ka hor inta lasoo xulay iyagoo dhaarsan oo baarlamaan soomaaliyeeda markaas farmaajo oo usoo doontay sidii uu loobil uga samay lahay oo cod uga heli lahaa ee baarlamaankan marka lama dhihi karo dowladdan hadda jirta ayaa soo diyaarsata lama dhihi kare waa baarlamaan ka horreeyey oo iyaga u codeeyey oo madaxtinimadooda meesha saara marka isma qaban karta hadda anaa soo xulaaya anaana eedayha meel islama qabto hashu idaa cune idaana cabaadee lama rabee waa baarlamaankii dowlad goboleedyadu ay soo direen oo ay kusoo farayareysteen waa tahay waan kugu soo laaban doonaa bal markan aan siiyo doctor ibraahim faarax bursaliid ditore waad aragtaa labada dhinac ee la kala taagan yahay khilaafkan taagan maxaa dhaliyey bismillah cabdi fataax aada umahadsan tahay adiga iyo asxaabta khadka igula jirta wasiir salaad iyo wasiir timcad iyo guud ahaanba bulshaweynta soomaalida kadib markii xukuumadda ay ku dhowaad sanad iyo bar ka gaabisay in doorasho la galo iyo sidii loo geli lahaa iyo goortii la geli lahaa oo eedo aysan keligeed qaadanaynin maamul goboleedyada laftigooda laga waayay inay iskaashi dhab ah xukuumadda kala sameeyaan isla arrintaas guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa banaanna uu waayey wax xulafo kula ah in doorasho qof iyo cod ah dalka loo saaro hadday ahaan lahayd xukuumad iyo hadday ahaan lahayd mucaarad nacasle iyo maamul goboleed iyo ku dhowaad cid walba oo saamiley lagu tilmaami lahaaba waxaa qasab noqotay in iyadoo waktigii uu ka dhiman yahay bilo lagu wada baraarugo muhiimadda ay leedahay in dalka noocun doorasho uu galo sidaasaa marka waxay keentay markii xukuumadda baaqi ay ku baaqday in la isugu yimaado muqdisho kala hore bishan 5teedii si gaara maamulka kismaayo ka garowe ay ka goos qabsadeen maadaama xiniya taabad hal cabaaraba uu soo jiray si gaara kismaayo muqdisho u dhexeeya garowena ay hiil ugu ahayd waxaa qasab noqotay in hogaamiyaha cusub ee reer dhuusamareebe axmed qorqoora in gogoshaan uu dhigo sidaasna lagu aqbalo qorshuhuna wuxuu ahaa in bal maamulada ay hoos u tashadaan oo wax la isu soo jiijiido sidoo kale horeba lafta gareenka bay dhaba sheegay wixii maslaxad dalka u ahna isla fiiriyo laakiin doctor hadda waxaad moodaaba qodobkii ugu horreeyay ay ka hadli lahaayeen bin xalay looga daartay oo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay ka qaateenoo wax weyn oo kale loo sii fadhiya aan ka ahayn turxaan bixin isu soo dhaweyn muqdisho maamulada taa laftigeeda waa u iman doonaa laakiin marka hore guddiga doorashooyinka oo guddoomiyaha u tahay xaliima yarey oo b b c da dhowr jeer la hadashay waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay doorasho qof iyo cod qabato marka sidee ku imaanaysaa in xukuumadda lagu eedeeyo inaanay waxba qaban ilaan guddiga iyo xukuumadda way kala duwan yihiin wallahi xaliimo rabitaankeeda marka laga yimaado si la taaban karo arrin suurtagal ma aha in doorasho qof iyo coda oo inta aan ka warqabno 3 xukuumadood oo isu banaysay kursiga xukuumadda hadda joogta ay ugu dambayso ay ka mid tahay ay qaban waayeen afar sano oo qaarkood ay siyaado bilo farsamo daaha ay ku darsadeen in hadda ay tiraahdo 12 bilood lagu qaban karaa wax suurtagala oo la taaban kara weli meesha ma jiraan laakiin saasoo ay tahay waa aniga eeda xukuumadda kaliya ma lahan eeda waxaa wax kule guddiga maadaama aan xulafada waa ahayn nasiib uu beri u yara noqonaya eeda waxaa wax kule maamul goboleedada
waxaa kule kuwa mucaaradku sheegtay kursiga inay qaataan moogaan caqli kala soo wadin waa eed loo wada dhan yahay ilaa dadka soomaalida ay gartaan meesha wax ka khaldameen oo ay isu garaabaan oo ka garaabaan oo ay rabaan inay si ka go-naanshala ay uga xaalaan waxaad moodaa in xaalku uusan si dhuusamareeb ka dhacay midnana fududayn karin waa tahay waan kugu soo laaban doonaa markan aan siiyo cabdulaahi cali xirsi timcadde cabdulaahiyo waad maqlaysaa shirkiinnii weynaa ee aad maalmaha wadeen waxaa lagu soo gabagabay leeyahay shirkii war-saxaafadeedkii shalay ka soo baxay madaxtooyada iyo hadalkii ra-iisul wasaare khayre sidaa miya maya maaha taa waxaan kaga jawaabayaa maamaha soomaaliyeed baa jirtayoo laba nin oo reer miya baa waxay soo hodeen nin reer miya mid baa yaqaanay marka ninka aad u yaqaanay oo aad ay isu yaqaaneen ninka loo soo hoday dabeedna wuxuu yidhi waa ninka aad inoo keentay waa bakhayr waxba kama suuroobayaan wuxuu yidhi maya waa nin fiican wayna soo halaamay wayna soo dhoweeyey neefkii baa la qalay gabadhii baa qashay dabkii bay shitay neefkii baa baase la kariyey hilibkii wuu soo sidaa markuu halka marka kii yaqaanay wuxuu leeyahy iima aha buu ku mahmahaya weli iima aha buu leeyahy dabeedna markuu halka dhexmarayo xaaskii la hadla wuxuu yidhi neefkaad qashay waa dirkee buu yidhi waa dirkii heble buu yidhi wuxuu yidhi ma neef la qalaabuu aha tollaay dib uula noqday marka annagu halkaasaanu taa ka taagannahay tan uu ka hadlay salaad cali jeelle xildhibaanada puntland iyo jubbaland anuu kama hadlay anuu waxaan ka hadlay xildhibaanada federaalka ee hadda joogaan ka hadlay xilligii la soo doortay iyo xilligii la magacisay xilli codka siiya kama hadlayn wuxuuna nooca in loo dhigo maaha waa ka baxay marka wixii dhinaca dowladda ka yimaadaba lugta ku dhufanaysaan ma rabtaan hadday wanaag yihiin xitaa maya wixii ka yimaada ma ahe waxaan ku leeyahay ilaa maamahadaas sidaas ahayd ma hubna weye lama huba weye waxay doonaan bay nimankani samayn karaan waxay doonaan bay sheegi karaan xaguusaa weye sidee madmadowga loo bixin karaa marka loo bixin karaa dee hadda mursaliid oo kale wuxuu yidhi wax loo sariyaa meesha ma jiro hadday intaa idhaahin anna tanaan kayn marka waxaa loo baahan yahay qaabkii ay doorashada u dhici lahayd in laysla soxo one man one vote waa rio wax dhici kara maa xagee ka dhici kartaa xamar baanay ka talin ma garatay oo shabaab meel walba haysta xagee one man one vote ka dhacaya marka maxaad rabtaa marka waxaa hadda loo fadhiya waxa weeye qaabkii iyo farsamadii ay u dhici lahayd baa la rabaa doorashada u dhaxayd in laysla qaato laysla meel dhigaan xubnaha dowladda federaalka waxaa jira dadka qaar waxay ku eedeynayaan inaad doonaysaan in sidii waagii hore oo kale magaalo madaxda goboleedyada oo kale in lagu soo xulo xildhibaanada oo dadka aad rabtaan aad soo xushaan marka taa maxaa kaga jawaabaysa annagu taa waxba cagayar kama jiraan annagu aanu rabno ma soo xulo laakiin qaabkii iyo qaab u dhow waa loo dhigi karaa tiradaa la badin karaa dowladda federaalka goobjoog bay ka ahayd kana noqon kartaa arrimaha laga hadlaya waa saa laakiin annagu waxaanu diidan one man one vote baa dhacaya iyo extension in la sameeyo waxaanu diidanaya waa waxa waa tahay ansiyo salaad cali jeelle siyaasiyiinta xilka ugu sarreeya dalka u tartamay aad ka mid tahay dabcan waad aragtaa warka cabdulaahi cali xirsi timcadde wuxuu leeyahay yaanan been la isu sheegin marka soo ma cadda warkiisa ninka horta waxaan rabaa waxaa la yidhi ma og tahay madaxa mayraxa lagu duubtaa la yidhi markaasuu min yidhi dadkan yaa la kala gaara madaxiisa mayrax kaaga ku duubaa la yidhi ma ogtaa saasaa lagu xalliyay arrinka marka waxaa waaye doorashada waxay ka dhacaysaa deegaano loo cayimay deegaanadaas ha kala amni badnaadaano marka misaal ahaan puntland xildhibaanadeeda waa tirsan tahay waa la yaqaanaa degaan nabdoon waaye halkaasay doorashadeedu ka qabsoomee dowladduna waxaad og tahay madaxtinimada soomaaliya ma ahan madaxweynaha qof iyo cod lagu doora maaha parliamentarian system waaye marka baarlamaanka waaye waxa lasoo dooranayo eesha ay sartu ka qurunsan tahana waxaa waaye ha lasoo xulo iyo xildhibaanka deegaankiisa ha laga soo dooro meeshi ay nabadu ka jirto waa laga dooraa meeshi ayna nabadu ka jirinna markii horeaba doorashada la yidhi lama tegi karaa la yidhi o special cases aa laga sameeyo waxaa la yidhi xaalad gaalaha lagu xulo laakiin puntland oo aad ku tilmaantay inay nabad tahay wasiirka ku jira wuxuu leeyahay ma qaban karno doorasho qof iyo coda marka ma qasab miyaa imanaya meesha maya ma dhixin taas ma dhihi kariyo oo ku jiraaba waa cabdulaahi soo saas maadan oran qadku ku jiraaba aan ka xaqiijin
ده هرتا هل يعني هل عض وين مو هو طال قبنايا أما قابكي لو قبنايا واحد اللي بنتلان ما كان عكرتها بنتلان ما لقوا قبن كرا قفي عض هذه لو ديار جروب له يعني هذا حلقان هرسان كبر عكرته إجستيشن ده موجود وين أنت بخلل واتهاي صلاة هاي وذا مركا وعديه واتاس adiga meesha muhiimadu waxa waaye anaga waxa la isku haayo inay Soomaalidu fahamtaan la rabo anaga hadda waxaana xisbiga midnimada dimuqraadiyadda oo aan aniga aan sameeyay mar hore waxaan raadinaynay waxa waaye inaan xisbi ku tartano 18 gobol 9 gobol oo kamid ah ama 10 gobol oo kamid ah aan 10,000 oo qofood ka keeno oo aan markaas nalaka diiwaan geliyo nalaka hubiyo waxaasoo dhan waxaa hor istaagay dowlad goboleedyada ayaa xisbiyadii inay ka howlgalaan oo ay meesha ka tartamaan oo ay xafiisya ka samaystaan oo hawshaasi ay u qabsoonto taa kulay saareen iyagoo dhahaya annaga inaan soo xulnaan rabnaa labaanka sharciga barlamaanka maxaa ku jaban inay soo xulaan haddii waagii hore ay soo xuli jireen maxaa ku jaban inay hadda soo xulaan hadda waxaan yeelay shuruucda dalka waxaa ku yaala sharciga dalka u yaalo dastuurka ku meel gaarka ah qof iyo cod uu ogol yahay awal marka waa la marmarsiyo jiray laakiin hadda barlamaanka Soomaaliyeed labadiisii aqal ayaa sharci doorashooyin soo saaray markaasaa madaxweynaha saxiixay ma bedeli kariyo marka heer gobol laga ma bedeli karo maxaa yeelay waxaad ogtahay dowlad goboleedku inay dhahayeen anaga yaan la faragelin umana xil saara iyagu doorasho heer qaran iyagu uma xil saara dowladda dhexe oo xil saaran sharciga doorashooyinka heer qaranna waa la sameeyey iyaga inay facilitated ka ahaadaan oo goobaha looga baahan yahay amniga ay sugaan oo ay dowladda la shaqeeyaan oo axzaabta siyaasadeed lagu tartamo halkaasaa laga marka salaado markaas saa u hadlaysid ma salaad baa tahay mise qof kale aniga salaadana dadka qaar waxay kugu eedeynayaan inaad tahay afhayeenka dadban ee dowladda oo mashruuc dowladda ay wadataa may aniga waxaan wataa xisbiga wuxuu rabiyaa doorasho qoftii hor istaagayso arkaa marka waxaan rabnaa anaga inaan dadka olola ka dhex samaysano aan tartano waxaan diidanahay oo muddo badan caqabad nagu ahay in dadka lasoo xusho oo ay yaqaanaan fiiri waxay yaqaana shisheeyaha waxay yaqaanaan baasweydka doorashada Soomaaliya yaqaanaan number sireedkeeda yaqaanaan in misaa ergada ku baxayaa la leeyahay in misaa odaga ku baxayaa la leeyahay haddana ka daro dibidal shabaabkiyaaba odayaasho waxay oo yiri annaga rabna inaan xildhibaanada doorkaan aad noo soo xushin oo u tilmaamo halkay soo xulayaan laakiin xogta ma hayno annaga xilligan la joogo xogtaas shabaab ku saabsan ma hayno ma waxaadan hayn sanad ka hor bay dabcan loo yeeray sanad ka hor bay hadda ma ahan waa xilli hore ahayd sanad ka hore qorshihii meel la dhiga in la fuliyaan diidanahay waxaan rabnaa inuu ninka shisheeyaha uu garan waayo number sireedka doorashada Soomaaliya waata qodobkaas dabcan waa u imaanayna oo kugu soo laaban doonaa salaad markan aan siiyo Dr. Ibrahim Faarax Bursiditore mar haddii madaxda dowladda dhexe ay xalay hadleen maamul goboleedyada leeyihiin doorasho inay dhacdaan doonaynaa haatan maamul goboleedyada shirkan uga soconaya dhuusamareeb maxay doonayaan inay ka soo saaraan bista arrinta ugu muhiimsan oo maamul goboleedyada ay u ballansanaayeen waxay ahayd mar haddii xaalka dalka lagu wareero bal inay hoos isu warsadaan khatarta iman karta oo ay kow ka tahay qalalaasaha amni ka siyaasadeed iyo kan dastuurina ay isla fiiriyaan si gaar ana maamul kasta inuu indhaha ugu hayo nooca doorasho la gelayo sida loo gelayo goortay dhacayso iyo kaalinta ayaga ay ku yeelanayaan marka meeshaas saddex culays bay leedahay waa mid xaqii dastuuriga ahaa ee asaasiga ahaa ee bani aadanimo ee caalami ee islaamnimo qofka Soomaaliga uu lahaa oo meeshaas lagu laalayo oo la rabo in qof ay masiirka dalka boqto ay gacanta ku qaadato iyo laba xaqii labada aqal sida salaad baada sheegay ay ku lahaayeen jamhuuriyadda ilaa baarmaan ayaga bedela laga helayna aysan ahayn inay kala tagaan sidii kala horeba la yeeli jiray in la laalan way raadinayaan xukuumaddu marka iyadoo dhinacna ka fiican oo rabta inay xuquuqdaas dhinac ka ilaaliso dhinacna u aragta sida ugu habboon ee ku soo noqon karta ama ay
kororsi muddo kororsi u heli karto inay ka shaqayso bay cabaar ragaadisay hadda marka waxaad moodaa qodobkii ahaa doorasho waa in la galaa waa inaan hal maalin lagu darin marka laga yimaado daaha farsamo 6 bilood iyo wixii la mid ah oo ay khasab noqonayso in la isla ogolaado walow aanay waxba hadda soconin oo aan xataa loo marmarsiyoon karin 6 bilood leanna bilan ugu filan hadda way ka dhiman ilaa Febraayo sanadka soo socda horaantiisa hadii Ilaahay awood u ogolaado waxaan moodaa inay khasab ku noqonayso mar hadii xalay ra'iisul wasaarihii uu hadlay iyo golihiisa wasiirada madaxtooyada ay ka daba hadashay oo ay yiday marka yey tahay marka inay go'aan ka gaaraan doorashada ma dhinacyada siyaasadda ma madaxda ma dadkii tartamayay ma guddiga doorashada shaqada waxa iskale guddiga Xaliimo Yarey oo la rabaa si farsamaysan oo qurux badan oo dadka Soomaalida u cuntanta inay qorshe u keento qorshihii keentayna lagama doodin culayska yimid marka waxa weeyaan in xukuumadda iyo maamulada qaarkood aanay saaxiib ahayn aadna loo sii kala fogaaday culayska kale jira waxa weeyaan dad isku tilmaamay inay yihiin saamilay siyaasadeed oo Soomaaliyeed oo dadka ay matalaan ay aad u yar yihiin laana xisbi si rasmi ah u diiwaan gashan oo Soomaali oo dalka oo dhan ka falgala ma jiro